farmaajo muxuu ku doorbiday xuquuq raadinta Ikraan Tahliil inuu ka doorto difaacidda Fahad Yaasiin. daawada warbixintan shargalay page-kana follow garay si ay u gaarto asxaab badan una helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale. leegtan waa inoo muhiim mahadsanid. ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa qaaday saacadihii la soo dhaafay tallaabo uu hore uga baqay ra'iisul wasaarihii ka horeeyay ee Qeere. Rooble oo la soo baxay awood tallaabo ay ka muuqato dhiirinaan iyo dumaqasho shacab oo aan cabsi lahayn ayaa shaqo joojin ku sameeyay agaasimihii hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin oo dadku tilmaamaan inuu yahay milkiilaha dowladda cid wax ka qaadi kartan aysan jirin kadib markii uu marhaabin aan loo meeldayn uu ku sameeyay warbixintii laga sugayay ee la xiriirtay arrinta Ikraan Tahliil. waxaa saacado kadib beeniyay awoodda lagu sheegay Fahad Yaasiin ra'iisul wasaare Rooble oo shaqo joojin ku sameeyay si ku meel gaar ah ugu magacaabay agaasimo cusub hay'adda nabad sugidda taas oo farxad gelisay inta badan shacabka Soomaaliyeed. farmaajo oo ka carooday tallaabada uu qaaday Rooble ayaa durbadiiba la saftay Fahad Yaasiin kaas oo go'aanka ka soo baxay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ku tilmaamay inuu yahay mid baalmarsan dastuurka dalka farayna Fahad Yaasiin inuu sii wato shaqadiisa. waxa uu ku halqabsaday farmaajo mujaamaladii Fahad Yaasiin uu ku sameeyay warbixintii laga sugayay isagoo na safaray inay hor keento golaha amniga qaranka warbixinta laga sugayay marka la mudeeyo kulanka ugu horeeyay golaha amniga qaranka taas oo farmaajo u arko inay tahay mid dib ugu soo nooleynaysa awoodihiisii mar haddii ciidankii badbaado qaran ay ka baxeen Muqdisho. ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa taageeray go'aanka uu ra'iisul wasaare Rooble uu shaqada ugu joojiyay agaasimihii Fahad Yaasiin isagoo tilmaamay in ra'iisul wasaaraha uusan lahayn waddo kale oo wax ku maareyn karay. go'aanka uu qaatay ra'iisul wasaaruhu uu ku saxsan yahay gabadhan waxay maqan tahay bil 2 bilood iyo ka badan waxaan isleeyahay jawaabtii uu ka bixiyay codsigii ra'iisul wasaaraha agaasimuhu ka bixiyay waxay u ekeed jawaab ah insubordination wax la yiraahdo oo ah ra'iisul wasaaruhu waxa weeye waa madaxii the government dowladda weeye marka hay'adda nabad sugidda xayndaabka dowladnimada kama baxsana marka waxay ahayd haddii uu codsaday ra'iisul wasaaruhu in uu warbixin dhab ah ugu kalsoonaan karo uu siiyo hadday macluumaad dheeri hayaan iyo warbixinta uu leeyahay waxaa la qaybsanayaa guddiga amniga qaranka waxay ahayd ra'iisul wasaarihiisa oo ra'iisul wasaarihii dalka ah in warbixinta marka hore la qaybsado ka codsado ra'iisul wasaaruhu in warbixintana la qaybsado guddiga amniga qaranka. jawaabta agaasimaha guud oo soo dedejisay hadda shaqo ka joojintiisu wasaarahana hadee wax kale oo samayn karaa ma jirin waxay ahayd in uu shaqada ka joojiyo waana uu sameeyay. haddaba arrintan maxay dalka horseedi kartaa maxay se damacsan yihiin Fahad iyo farmaajo waxaa nooga jawaabaya agaasimo ku-xigeenkii hore ee NISA Ismaaciil Daahir Cusmaan. waa soo socdeen waana isla ogaayeen qorshaha ay wataan waa mid iska cad oo qof walba uu caqli leh ama siyaasadda wax ka yaqaan uu fahmi karo. ujeedkooduna waxay tahay in kow laga shaqeeyo saacadaha soo socdo inay iscasilaan qaar ka mid ah golaha wasiirada kadibna madaxweynaha uu ku dhawaaqo uu yiraahdo ra'iisul wasaaraha waxa uu dhumiyay kalsoonidii golaha wasiirada saasaana keentay wuuna dhacay dhinacna uu madaxweynaha ku dhaqmaayo sharci darro dhinaca kalena uu maaragtay uu isxijinayo sharciga. laakiin xaqiiqda meesha taalla waxay tahay madaxweynaha muddaxileedkiisa waa dhamaaday sharciyada dastuuriyana ma haysto xilna kama qaadi karo ra'iisul wasaare xilna ma magacaabi karo dastuurna ma cugsan karo qorshaha iyo khiyaanada Fahad iyo farmaajo ay wataanna waa taas laakiin waxay waddanka gelinayaan god madow ayay sii gelinayaan maxaan ku idhahdaa waxaana sii daciifi doonta sii dhammaanayso kalsoonidii lagu qabay doorashada loo balansanaa iyo saaxiibada Soomaaliya ay ka caawinayeen in dalkan doorasho ka dhacdo oo kalsoonidooda ayagana dib ula laaban doono waxayna Soomaaliya kusoo dhammaan doontaa in dowlad ku meel gaar loo sameeyo. dalku waxa uu galay xaalad kale oo abuuri karta qallaasa siyaasadeed iyo mid amni arrimihii doorashooyinka ay socdayna hakad gelin karta balse farmaajo u arko in muddada ay isqabsiga socdo ee dan ugu jirto kusii fadhiga kursi ay hareeyeen buuq badan haysashadiisa. adiga sidee u aragtaa arrintan?